السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحنا كينغ سولفر واحد يقدر ونسان كينغ سولفر برو. gabar Soomaali ah ayaa ku geeriyootay magaalada Istanbul ee Turkiga. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Maha Cumar Ibrahim ayaa geeriyootay kadib markii ay ka soo dhacday dabaqa weliba qaybta lixaad hooy loogu talagalay ardayda. Booliska waddanka Turkiga oo goobta gaaray ayaa weli xaqiijin in gabadhu si iskeed ah isku tuurtay iyo in ay si kale wax u dhaceen. Meydka Maha Cumar Ibrahim hadda waxaa baaritaan ku wada booliska. Waa 24 jir wax ka baranaysay jaamacadda Sabahattin Zaim kulliyadda weliba cilmi nafsiga ee magaalada Istanbul. Alla weyne ayaan waxaan ugu baryaynaa in gabadha iyada ah naxariistiisa uu jannada ku geeyo. Alle ha u naxariisto walaal, adna halkaan ugu soo duceey si ay jannatul firdaws ugu mid noqoto addoommadu Ilaahay ku geynayo naxariistiisa.